hadda waxaa duleedka deegaanka dacwaalay ee ciidamada gaarka ah ee liyu boolis ay ku toogteen 5 nin oo la sheegay inay ka socdeen beesha Isaaq kuwaas oo sahantag ahaa doonayna inay indha-indheeyaan fariisimaha ciidanka waxaas aad u jeedaan waa gurmadiyadii kale oo ugu badnaa kuwaas oo ah qabiilka Isaaqa oo xuduudka oo furan galaya xogtii ugu dambeysay marba in la wadaago Mustafa Cagjar dhankiisa qalad weyn dhacay habeen hore ciidanka liyu boolisku waxay xireen guud ahaan xuduudka gudahana waxa ku jiray dadkii soo gurmaday odayaashii Isaaq markay dhaheen waa nabad iyo waanwaan iyo sheekadaas ay bilaabeen ayaa dadkii qoryaha watayna la sii daayay ciidankiina xuduudka laga soo qaaday waana mid keentay maantay in kumanaan kale oo ciidamo ah ay gudaha soo galaan xilligaana ay qorsheynayaan in ay weeraraan fariisimaha ciidamada taasoo xilligan sababtay inuu dhaco qasaaraha maantay gaaray maleeshiyaadkaas xogii ugu dambeeyay ma rabaa inay la wadaago macluumaadada dheeriga ah aynu ka helayno xaaladda dacwaalay oo waji kala yeelatay Mustafa Cagjar oo markaas ciidamadii liyu booliska wali ku dhagan xilli warbaahinta deegaanka ee halkaasi ku sugan ay saakaydii hore baahiyeen in waxa hadda soconaya aysan ahayn wax la fiirsan kara aysan ahayn dhamaantii soo dhawaada muuqaalka dhamaantii share gareeya dhamaantiina la gareeyo YouTube kana ku soo bira aad ma santiin xaaladda dacwaalay way isbedeshay kumanaan kun oo kale oo shacab hubaysan iyo ciidamo isugu jira dharka soo bedeshay ayaa imaaday hadda waxa la soo warinaya saacadan daqiiqada ka hor inta hadda barnaamijka aan idin duubin in maleeshiyaadkii qabiilka Isaaqu ay rabaan in ay weerar ballaaran ku qaadaan ciidamada liyuga ogow iyaga dambi galay oo dambiga ay galeen waxay tahay inay xuduudka inta ka soo gudbeen ciidankii ay marti qaadeen ay laayeen ciidanku hadduu iska difaacayna jabkii gaaray kuma aysan waana qaadanoo ilaa xilligan waa duulaan waxayna rabaan inay argoostaan waana mid keentay in saacadan idan la hadlayo ay weerar ku soo qaadeen fariisimihii dacwaalay ay ku laayeen ciidamada liyug taas oo keentay in 5 nin oo sahantag ahayd oo indha-indhayn u socotay 5 ninba la dilay qoriina laga qaatay ciidanku markasta difaac ku jira ilaa xilliga ciidanka liyu boolisku weerar iyagu inta qorsheeyeen ay duulaan yihiin ma jiro ilaa xilliga ciidamada liyu boolisku waa difaac markii horena waxa lagu hoday ma taqaanay sorry way iska difaaceen maantayna waa la soo weeraray way isdifaaceen xaaladana faraha iminka ka baxday muxuu yahay marka qaladka jira halkee qaladku ka jira wuxuu qaladku ku jira dhanka deegaanka madaxweynaha deegaanka xafiiska Cagjar way caddahay wax meesha ka jiro way caddahay in xuduudii deegaanka lagu soo xadgudbay way caddahay oo muuqaaladoodu waa kuwan hadda la wadaagayo kumanaan ciidan ah oo qabiilaysan oo xuduudka ka soo gudbaya oo hubaysan haddii uusan isagu ogeyn oo indhaha ka milaysan yahay gaarsiiye waa kuwane intaas bahadaad u jeedid markii maxaa ku dhiman intaas bahadaad u jeedid maxaa ku dhiman ninkaas waa la hadlayaa waxa la sheegayaa in odayaal ay la soo hadlayaan sidoo kale reerahan xidid bay yihiin sida la ii sheegay taasi waxay keentay in istiraatiijiyadii habeen hore ciidanku dhigeen oo ahayd in waxa gurmadka ah oo dhan ay soo galaan gudaha markaasna go'doon la geliyo in isaga dhankiisa ay ka fashilantay oo ciidankii uu dhahay xuduudkana fura dadkana faraha laga qaado wixii ka dambeeyana nabadii waanta laga shaqeeyo marka halkaasi joogto nabadii waanta laga shaqeyn la waa taraamaati hadda saacadan ciidanka weerareen 5 baan laga dilay